fashil kale oo weyn ayay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay markaani dhex tibaaxaysa ka gadaal markii ay soo baxeen xogo iyo warar iyo warbixino tilmaamaya in wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka China sababta maanta uu baaqday ay ka dambeeyeen maamulka Israa'iil Yuhuda iyo sidoo kale dowladda Itoobiya in badan dadka Soomaaliyeed waxa ay maanta ay u libtoodeen oo ay u rafaadeen ilaa yasaakina wadooyinka waaweyn ee caasimadda Muqdisho ay u xiraayeen wifdi balaaran oo ka socda dalka China Itoobiya ka soo kicitimi lahaa maalmahana halkaasi ku sugnay ayadoona mar qura sida dadka ilaa yasaakay indhaha ay u taagayeen sidoo kalena lugtooda ay u maalayeen xaaladdu ay ku xumeed la arkayay dad badan oo waayeela ilmo iyo haween dhibaataysan oo wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda Muqdisho lugtooda maalaya in gelinkii dambe ee maanta ama duurnimadiiba lagu dhawaaqay in wasiirkii dhamaay wadooyinka ilaa saaka u xiraayeen shacabka Soomaaliyeed howl badan oo muhiim ah oo ay qabsan lahaayeen maanta ay uga baaqatay wadooyinka xiran meel ay maraan ay waayeen lagu wargeliyay in uu baaqday guud ahaanba ama uu soo socon warar dheeraada oo la helay ayaana waxa ay sheegayaan in sababta uu u baaqday wasiirku ay wax ka og yihiin ama ay ka dambeysay Israa'iil iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaana xalay waxa uu kulamo ilaa iyo shalay oo la qaadanayay wasiirka arrimaha dibadda ee China wifdi uu hogaaminayo oo Addis Ababa ku soo sidoo kale wakiilka bariga dhexe u qaabilsan dowladda China ayaa xalay waxa uu kulan oo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil arintan ayaana xog iyo warbixin dheeraad ah kaga hayna soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal adigu ma kamid tahay dadkii magaalada Muqdisho ku sugnay ee maanta lugtooda maalay hal marana si kale uma taqaaniin qaac laga yeersiyay oo la yiraahday ninkii dhamaay oo saako dhan wadooyinka u xiraadeen howlaha badan ee dadka shacabka ay qabsan lahaayeen ay u baaqdeen waa baaqday markii la yiri maxaa dareemta daawad ma kamid ah dadka channelka subscribe loo muuqaalka la garay qaybta hoose commentiga aragtida nagu wadaag dadka Soomaaliyeed bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Banaadir magaalada caasimadda Muqdisho saaki waxa ay ku soo waabristeen ayada oo wada kaste ay ciidan ay dhooban yihiin shacabka Soomaaliyeedna aysan dhaqaaq sameey karin sidoo kalena dhammaan isku socodkii gaadiidka la xiray oo wadooyinka dhanba ay yihiin kuwo xiran oo sidoo kale bandow lagu soo roog dadku waxa ay si weyn isku weydiinayeen sababta keentay in magaalada bandow lagu soo rogo oo dadka yacagahooda ay maalaan inkastoo shaqooyinka badankoodba ay fasaxay ahaayeen iyo sidoo kale goobaha waxbarashada oo maalinimo jimcaha ay ahayd haddana dadka badankoodu waa ay lugeynayeen oo markii aad dhex qaado wadooyinka waaweyn ee caasimadda waxaad arkaysay boqolaal dad oo wadooyinka maraya oo cagtooda maalaya sidoo kale qaar ka mid ah dadkii lugeynayay oo nala hadlay ayaa yiri sidaan runtii saameyn weyn nagu yeelatay waayo hadda u jeedid waxaan joogaa lambar 4 isgoyska lambar 4 wax gaaray ma socdo waxaan ka soo lugeeyay ilaa iyo ishaag tarboonka ka soo lugeeyay ma garat lugteedan ku socdaa marka runtii saameyn weyn nagu yeelatay marka dawladda waxa leenahay hadii barnaamijyada ay jiraan in dadka u dhimriso waayo waxa jira dad waayeel warar soo baxay ayaa waxa ay tilmaamayeen sababta dawladda Soomaaliya ay u xirtay wadooyinka in ay la xiriirtay wifdi culus oo ka socda dalka China midkaasi oo ku soo wajahnay magaalada caasimadda Muqdisho wifdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China ayaana waxa ay wararku ay sheegayeen inuu ku soo wajahnay magaalada caasimadda Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo midda China huba midnaba ma aysan shaacin sababta ka dambeysay in safarkii wasiirka ee maanta uu baaqdo wasiirka China ee arrimaha dibadda ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa maalmihii u dambeeyay asagoona kulamo la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda Itoobiya sidoo kale maamulka gumeystaha Israa'iil ay cadaadis xoogan ay saareen wasiirka sidoo kalena ay ugu baaqeen inuu si tagin magaalada caasimadda Muqdisho ilaa ay hadda lama xaqiijin in si rasmi ah safarkii Muqdisho oo ku imaan lahay wasiirku inuu baaqday inuu dib u dhac ku yimaado wasiirka ayaana waxa lagu waday markii uu soo gaaro magaalada caasimadda Muqdisho inuu kulamo kala duwan oo la qaato madaxda dalka ugu sareysa ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud imaashaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China ayaana waxa uu ku soo aadaya xilli dhawaan maamulka gumeystaha Israa'iil ay Soomaaliland u aqoonsadeen inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa sidoo kale yimaaday magaalada caasimadda Hargeysa iyadoona halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana arintaasi isxigtay ee uu qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo Somaliland wadan ugu aqoonsaday si weyn kaga xumaatay ayadoona si weyn diblomaasiyadda ay iskugu hayeen maalmihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya iyo Israa'iil dowladda Soomaaliya hogaamiyay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana gul weyn waxa ay ka gaartay inay dhinaca diblomaasiyadda ay kaga guuleysato Israa'iil ayadoona wadamo badan ururo badan oo caalamiya ay dowladda Soomaaliya ay taageereen kuna dhawaaqeen cadeeyna sidoo kale mowqifkooda inay Soomaaliya ay garab taagan yihiin aqoonsi yihiin xuduudeeda iyo sidoo kale midnimadeeda iyo madaxbanaanideeda waa u sheegnay wuxuu ku astaamaysan yahay ama ku suntan yahay barakicin shacab Soomaaliyeed qoysas Soomaaliyeed oo 200,000 oo qoys gaaraya inuu barakiciyay oo magaalada Muqdisho ka barakiciyay ayagoo intooda badan markii hore ahaa barakacyaal gudaha dalka ah oo ka soo kacay duruufo colaad ama abaaro ama biyo baxo ka soo qaxay oo dalka gudihiisa ku soo qaxay iyo mar labaad rejiimkiisa ama nidaamkiisa barakiciyay wuxuu kale ku suntan yahay in maanta aysan jirin xarun dawladeed oo bad qabta oo iibiyay laga soo bilaabo waaxyihii degmooyinka gobolka Banaadir waaxyihii degmooyinka gobolka Banaadir xarumihii ay lahaayeen ilaa iyo wasaaradihii wakaaladihii meel kasta ee dawladda hadda u dambeysay meyd maxalli kala siisiyay wakaaladii hargaha saamaha iyo Soomaali Airlines dhulkii ay lahayd ee u dambeeyeen haddeertaan oo suuqa la geeyay lacagta halkaas ka timid marka ee dadka Soomaali laga dhacay xagee la geeyay horay aniga shakhsiyan waxaan u sheegay in doorashadu lacag dhaqid ay tahay laakiin waxaan ku faraxsanahay inuu madaxweynaha iyo marqaati kacay oo yiri modelka doorashada lagama noqon karo sababtoo ah malaayiin dollar nooga baxday xildhibaanana anaga lasha qaar kamid ah aniga iyo Sheekh Shariif Abdullaahi Injineer Arab iyo Qosoble baarlamaanka iyo kooshin miisaaniyadda baarlamaanka lacagtaas kuma jirto xagee la geeyay lacagta malaayiinta ah oo aanan budgetka ku dhex jirin xagee ka timid xagee la geeyay waa money laundering waa lacag la dhaqaayo maxaa lagu dhaqaa doorasho qalab ciidan lagu soo gaday helicopter lagu soo iibiyay intaa laga dhacay marka horta meesha wax doorasho kama socoto waxaa ka socdo lacag dhaqid waa midda koowaad midda labaad oo madaxweynaha cadeeyay maxaa waaye muddo kororsi weligeena waan sheegi jirnay aniga reer Hiiraan aan ay Buulaburta magaalo Iliyaa ka imid waxaa la yiraahdaa luqadda ciyaalka xaafadda Buulaburta anima tacticeene wax la yiraahdo isticmaalaan madaxweynaha raggii oo tacticeelaha anaga ma wasna qaana inuu muddo kororsi u socdane asagaa sheegay wuxuu yiri kaarka iska luminin waa kaarka ugu cooleedahay xildhibaanka deegaanka wakiilka dowlad goboleedka baarlamaanka dowlad goboleedka iyo midka federaalka marka wuxuu leeyahay doorashadaas inta la qabanayo ana iska joogaay asaa dhigi jiray inaan joogo jecliya filla Soomaaliya maxaa ka dambeeyay dhigi jiray madaxweynaha nolol intii la ugu celinayna wax kale ma jiraan filla Soomaaliya nolol ka dambeeysa inaan joogo jecliyaani hore loo waayay marka doorashadan qof iyo Xasan Sheekh oo asaga ka bilaato asaga ku dhamaata maamulkeeda asaga ka bilaawata asaga ku dhamaata lacagteeda asaga ka bilaawata asaga ku dhamaata securitygeeda asaga ka bilaawata asaga ku dhamaata dadka la keenayo meesha asaga ka bilaawata maamulka ka dhamaata wax kasta oo doorashada asaga ka bilaawata asaga ku dhamaata marka maxaa waaye waa doorasho qof iyo Xasan Sheekh oo sheegay xisbiyada sidii hadda reer wasaare khayr ka soo cararo statement ka soo saaray kuwa islaha meesha amay wax ku jiraan oo rajo ka qabay
sidii oo hayso wax walba waa la bedelay waxa isku ogeen waa la bedelay waa la bedelay waa la bedelay waa la bedelay ku soo wareereen sharci baarlamaanka ansixi baarlamaanka loo celin jiray Soomaa may waa la iska bedelaa waa qolada isku tagay hal la bedelo maayarkii hal wada maayarka dib nooga dhiga golaha caasimada dib nooga dhiga dadkii liiska hal la keen dadkii la dooray may dib nooga dhiga xisbiyada waxay ugu darnaa mid golaha fulinta khiyaarta kamid ah xisbiga oo JSB wuxuu yiri shimbirta iyo 15 waxay tahay maana ay weydiin raada xisbiga guddiga waxa dhan wax yaqaan lama arko odayga bis yaqaan madaxweynaha wuxuu noo cadeeyay extension inuu rabo annagana waxaan taaganahay extension waa qad cas madaxweyne waqti isaga luminin waxa kale madaxweynaha sheegay modelka waxa looga noqon karin lacag inay ka baxday lacagtaas waa lacagtii shacabka Soomaaliyeed laga dhacay oo hantidooda qaranka lagu iibiyay madaxweyne wax justification ku noqonaysa malaha saas daraadeed madashu waxay uga digaysaa dadka la barakiciyay masaakiinta hantidooda dhacay la dulmiyay waxa uu raadinayaa madaxweyne Xasan Sheekh waa inuu si xalaalaysto hantidiina iyo dhulkiina iyo barakicii inay sii socdaan waa inuu xalaalaysto waxa aan ka hortaaganahayna waa intaas in ogaatiin waa Soomaaliya maxaa kale uu sameeyay baashi dhan xaafadu ka dhig kii hadla wasiir xildhibaan xaafadu ka hadla xamar leeyahay asaga wuxuu yiri maaldhow taariikhda Soomaaliya bej cusub oo furmay war doorasho xataa haday degmooyin waxay ka dhacay Soomaaliland Puntland waa ka dhacay marka asaga conceptigiisa dhan madaxweynaha waxa mar ka dhacay taariikhda Soomaaliya oo ko jawaaba anaga reehbel la dii waxa dhan wuxuu ka dhigay wax maar wax xaafad ah oo ka dhigay siyaasadda Soomaaliya sumcad darro waa iyadan iyo qaab darro anaga maxaa rabnaa waa cadeynay waxaan rabnaa doorasho heshiis laga yahay hufan matalaada xildhibaanka xoojinaysa waqtigeeda ku dhacdo 5 bilood oo dhiman ku dhacda laga wada hadlo guddiga dhaxaad yahay soo clear ma madaxweynaha laakiin ma rabiyo muddo kororsi iyo dana dhaqaalo ka raba doorashada annaga waxaan ka rabaa dal in la badbaadiyo oo dalka xasiloonidiisa laga shaqeeyo oo wadajirkiisa laga shaqeeyo oo transition nabada oo ku dhaco aan rabnaa ma labadaas isku ma qalmaan nin inuu danaysta raba nin loo soo jooga cadale korkeeda shabaab ay taagan yihiin aan dan ka lahayn iyo dad dalka damqanayaan marka annaga waxaan cadeynaynaa shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa la ilmo xoogi karo qof inuu xoogi kara male Xasan Sheekh Santuqiyo Beena oo dhinac yaaloha iyo maya hore Soomaaliya lagu soo xoogi waayay dadka Soomaaliya lama xoogi karo waa been wax ka jirana lama arko doorashana meeshaas lagu ma haayo waxa lagu haayaa dulmiga inuu sii socdo boobka inuu sii socdo Soomaaliya waxay tiraahdaa kabahiisa ninka ka tolanay kaba kuwiisa la eega garsoorka xashiq waa aragteen ciidanka xashiq waa aragteen dhaqaalaha soo u maamulay hantida qaranka waa aragteen security soo u maamulo waa aragteen siyaasadda arrimaha dibadda soo u maamula waa aragteen waa nin kaligiis wax ka bilowdaan oo ku dhamaadaan Soomaaliya intaas ka badan wadaadka ma sii xamili karto marka annaga waxa meesha u soo istaagnay kali inaan cadeyno waxaas inay xaraan yihiin loo rabo in lagu xalaalaysto boobka iyo dulmiga inuu soo socdo waa maasantii